Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta kulan gaar ah la yeeshay guddi heer qaran ah oo u xilsaaran wajiga labaad ee qaabaynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Kulanka ayaa looga hadlay halka ay marayaan howlaha loo xilsaaray guddigaasi. Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu mas'uuliyiinta guddiga ka dhageystay warbixin la xiriirta halka ay marayaan howlaha muhiimka ah ee dhamaystirkooda laga sugayo guddigaasi. xubnaha u warramay Ra'iisul Wasaaruhu waxay sheegeen in ay jiraan hawlo u qabsoomay muddadii ay shaqaynayeen iyo kuwo weli aan la dhammaystirin hase yeeshee waxay sheegeen inay soo afjari doonaan dhowaan. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa guddiga ku bogaadiyay dadaalka uu sameeyay muddadii uu dhisnaa waxa uuna faray in ay dardargeliyaan fulinta hawlaha u dhiman. waxa uu tilmaamay in hawsha laga sugayay ay tahay shaqo qaran oo muhiim ah maadaama ayuu yiri ciidamada qaranku ay sugayaan shaqooyin badan oo la doonayo in la qabto marka loo qaabeeyo si wanaagsan. wajiga labaad ee qaabaynta ciidamada qalabka sida ayaa loogu talagalay in lagu hubiyo hawlihii lagu qabtay wajiga koowaad ee qaabaynta iyo dibdhiska ciidamada sida diiwaangelinta goobaha loogu talagalay inay ku sugnaadaan xuquuqdooda, waajibaadka, tayeynta iyo tiradooda.